nin shiikh baa wuxuu lahaa arday fara badan, wuxuuna jeclaaday hal arday oo ardaydiisa ka mid ah. markaasaa ardaydii xumaadeen oo sheekhii yidhaahdeen, ardayga maxaa noogu fadilay, waxuna ma dheeree. markaasuu sheekhii yidhi, shimbiro hala soo qabto. markay soo qabteen ayuu arday weliba u dhiibay hal shimbir, wuxuuna ku yidhi, ku soo gowraca meel aan qofna kugu arkaynin. arday weliba wuu la dhaqaaqay. meel cidlo ah markuu tegay ayuu shimbirtii ku gowracay. ardaygii la dhahayay, maxaa noogu fadilay, ayaa wuxuu la soo laabtay shimbirtii. shiikhii baa su'aalay ardaygii, wuxuu yidhi, ardaydii kale way soo gowraceen shimbirihii, ee maxaad u gowraci weysay? wuxuu yidhi ardaygii, adiga waxaad i amartay in aan ku soo gowraco meel aan cidna igu arkaynin, anigana meeshaan tagaba allah baa igu arkaayo. shiikhii wuxuu ku yidhi ardaydii, ardaygan waxaa idinkaga hormarinayo waa intaas, oo idinka qalbigiinna waxaa ku weyn makhluuqa, isagana waxaa ku weyn qalbigiisa aragtida allah subxaanahu wa tacaala. intaas ayuu ku eg yahay qisadeennii maanta.